mustaqbalka adigu ma saadaalin kartid. Noloshuna 90 digri ayay wareegaysaa daqiiqadiiba. Xagal kasta oo aad nolosha ka fiirisana waa fursad bannaan. Ha yeeshee, wax kasta waxa ay ku dhacayaan qalinka iyo qoraalka Ilaahay. Haddaba, garaadlaha ama qofka maskaxda lihi marnaba ma labalabeeyo ee yoolkiisa uu yaqaanaa. Maanta barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa maskax tuujinta iyo faa'iidada ay leedahay in qofka bini'aadamku uu u fakiro si cabqarinimo ah oo fikradiisa uu dabagalo ilaa iyo guusha. Mahadsanidin asxaabta qiimaha leh ee ku xiran channelkeena. Hadda waan sii koraynaa, ballanteennuna waa 5,000 inta ka dhiman bishaan. Waa hibo Ilaahay bixiyo midda ugu qaalisan in aad yeelato maskax weyn oo u fakiraysa si toosan. Dadka bini'aadamka ahi waxa ay isku dhaafeen curinta fikradaha, hirgelintooda iyo sidoo kale u dhabar adeegidda gaaridda guushooda. Sirtuna waa in aad fahansan tahay hadafkaaga iyo halka uu ujeedkaagu yahay. Marka aad fahansan tahay oo aad taqaanid hadafkaaga, waxaad u bareeri kartaa caqabad kasta oo ka hor timaada inaad iska horleexiso si aad u gaadho guushaada. Bini'aadamka haatan nool waxaa kasii dhammaanaysa fikradihii wax curinta, waxaana moodaa dadku in ayba u dhardhigteen waxa loo yaqaano copy paste ama wax soo koobiyeenta. Aan u soo laabto mawduucayga ee weligaa ha ka labalabeynin in aad fikradaada ku taagnaato, dadkana ka gado kana dhaadhiciso ilaa iyo ay kula qaataan. Way dhacdaa in ay dadku ku yiraahdaan midkaan maduul baa wax usoo sheega, ma nin waalan baa, mise wax kale ayaa ku adeeganaya. Waxba u arkin, dhag ha u dhigin. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo lagu tilmaamo hogaamiyihii ugu wanaagsanaa ee koonka soo maray ayaa marka uu soo baxay waxaa la dhihi jiray kani waa sixiroole beenlow ah, waa nin waalan iyo waxyaabo la mid ah. Ha u joojinin waxyaabahaas oo dhan iisa noqonin kuwa ka hor istaaga guushaada. Anigan hadda ku dhiirigelinaya ayaa laftirkaygu dhibano u ah bini'aadanka sida taban u fakira, doonaya in ay xagaldaaciyaan dagaalka aan ugu jiro guushayda. Adiguna ha noqonin mid daciif ah oo maskaxda laga dilo. Weliga haddii fikirkaagu xitaa ka culus yahay buuraha oo aad dareemayso, dusha u dhigo. Noqona geesiga tiigsanaya hadafkiisa ee yaqaana halka ugu habboon ee uu u jeedo. Dhabahaaga wuxuu noqon karaa mid qodxa badan, wuxuu noqon karaa mid cariiri ah, wuxuu noqon karaa mid aad rafo ah. Waxba u arkin ee jilbaha dhigo. Hayaanka, guura socodka, gaajada iyo oonkana weligaa ha isu dhiibin. Hogaamiyaha dhabta ah ma ahan midka qaata waxyaabaha ay noloshu ka hor keento, ee waa midka isbeddelka qaata una dhabar adeyga kuna dabaqa nafsadiisa. Filosoofkii weynaa ee Irishka ahaa ee Daniel Goleman ayaa yidhi, leadership is not domination, it's art of persuading people to work toward a common goal. Hogaamiyenimadu waa falsafada iyo xikmadda ku dhisan ka dhaadhicinta dadka si loo gaaro hadaf sax ah. Way dhacdaa, wayna dhici kartaa, wayna dhici doontaa sida xaqiiqda ah in nolosha guud ahaan ay kuga hor keento caqabado badan kuwa oo ku saameyn doona, sida bay'ada aad ku nooshahay, waqtiga, dakhliga aad haysato iyo sidoo kale fulinta waxyaabaha aad doonayso inaad qabato. Laakiin yaanay ku hakinin, hana u joogsanin caqabad walba oo ka hor timaadana. Ku bixi waqti iyo qarash inta aad awoodo si aad uga guulaysato. Hayaanka iyo hiigsigaagu ha noqdo mid fog, weligaana ha u jabin cadowgaaga, waayo marka aad guul dareysataba iyaga waxay u tahay guul. Cabqariga weynaa Albert Einstein ayaa yidhi, the measure of intelligence, halbeegga cabqarinimadu, is the ability of change, waa awoodda isbeddelka. Qofka bini'aadamka ee cabqariga ama bini'aadanka saliimka ah ee awoodda badan uu u adkaystaa isbeddelka iyo dhibaatooyinka uu la kulmi karo inta uu isbeddelkaas ka hirgelinayo. Albert Einstein waxa uu ahaa ninkii ugu fiicnaa ee sayniska iyo xisaabaadka. Laftirkiisuna ogow dugsi sare kama bixin ee waa uu ku dhacay iskuulka ilaa iyo 2 jeer. Qisada labaad ee aan maanta jecelnahay inaan ku taabano nana saameynaysa waxay tahay Elon Musk, ninka aad wada taqaanaan ee asal South Afrikaanka Mareykanka ah iskale shirkadda Tesla, ayaa mar la weydiiyey waraysi isaga oo ku guda jira caqabadihii ugu weynaa ee uu la kulmay shirkadiisa Tesla ee electric carska ama baabuurta ku shaqeeya dabka korontada. Waxa uu yiri, "Thing is important enough, even if the odds are not against you, you should do it
still you should do it. waxa uuna ula jeeday haddii xitaa aad ogtahay hawsha aad qabanaysid maxsuulka ka soo baxaya inaanu ahayn mid ku qancin doona qabo hadhowtana waxaad arki doontaa maxsuulkaagii ama resultigaagii oo noqda mid ku kaafiya oo aad ku qanacdo. qofka doqonka ah ee fashilmay waxa uu leeyahay fursad labaad. weliga ha isdhiibin. ogo kartida iyo geesinimada lagu sheegayo waa wax adiga kugu jira, keliyana waxay kaaga baahan tahay inaad isticmaasho. energy-ga iyo motivation-ka ugu weyn ee aan ku siinayana waxa uu yahay ku dayo kii ugu sharafta badnaa dunida, Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, xilli uu yiri nabigu caroonin, weliga ha caroonin. aayad qur'aan ayaana nafaraysa Nabi Maxamed waxaa idinku ku dayasho wanaagsan. nabadgelyo iyo nabadiino iyo nooli kulantay. barnaamijkan quruxda badan waxaa idiin soo diyaariyay anigoo Cabdullaahi Cabdiqaadir Jimcaale. halka aad ka daawanaysaan oo Somali Media Show. waxaan iga codsanaynaa inaad sii share gareysaan muuqaalkan si uu u gaaro asxaab wanaagsan oo sidiina oo kale ah. ugu yaraan wax yar ayaad ka faa'iiday barnaamijkan, even haddaad maskaxda ku degsatay. mahadsan.